ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland miyuu tahli kari waayay inuu hal xabad u rido xagga laascaanood hadduu doonto haba ku dhacdo meel ka sokaysee boqorkiin bay joogaan goog bay joogaan dhowr waxay joogaan aaga sanaag oo dhan meelo u dhadhow oo hub laga ridi kari joogaan maxay u ridi waayeen waa qodob muxuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa hadda afkiisa aynu uga waqli weynay isagoo cambaaraynaya ama leh safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya talaabadaasan ka qaadana maxay afar wasiir iyo baarlamaan iyo la boodboodayaan oo habaar baa la wada awliya waxaas maxay tahay jileeca Soomaaliland ilaa heer ka gaarsi muxuu yahay waa maxay hadaba sababta Muuse Biixi xilligiisii iyadoo oo maanta sanad iyo bar laga joogo xilligii laascaanood laga soo saaray ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in ay ku dhici weeyaan oo talaabo ay qaadi kari waayeen ra'iisul wasaare Xamse oo maalinta intuu afkiisa soo qaaday yiri annagu xukuumad kale markay timaado ayaanu talaabo qaadi doonaa maxaa soo dhan ayaan rabnaa inaan fashilo iyo waliba xukuumadda Soomaaliland oo laga hayo sirweyn iyo safarkii Djibouti markii ay isugu yimaadeen laga wada hadlayay Soomaaliland iyo Soomaaliya xilligii dagaalkii laascaanood kadib wixii dhacay ee laynaga qarinay baan maanta ka shifaya barnaamijkan sheer gare la wadaaga asxaabtaada wax la dhowrtaa ma hadlo qarankii jamhuuriyadda Soomaaliland waa la burburinaya waxa lagu soo socdaa Burca iyo Hargeysa diid ama yeel barnaamijka iga sheer gare oo baliga gaarsi dadka reer Soomaaliland ee jecel qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaadna bal in ay xukuumadan aan riixin bal gamcuhu ay nagu daalaan inay talaabo u qaado ugu dambeyn markaasi faaladaadana waa muhiime nala wadaag sheekan kaaga sheekaynaya markii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo saaray dabayaaqadii sanadkii 2023 waxa tagay Djibouti wafdi madaxweynaha Soomaaliland xilligaasi Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirkii arrimaha gudaha xilliga oo ninkan fiqiya imka arrimaha dibadda laascaanood jooga kulankii halka Ismaaciil Cumar Geeli waxa uu yiri ka wada hadla arrimaha masiiriga waxa uu qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland in laga tanaasulo iyo in Soomaaliya lagu biiro ama la kala go'o arrintii markay halka marayso waftigii halka ka socday ereyo xunxun baa qaar ka soo baxay waliba ninka la yiraahdo fiqi ayaa waxa uu yiri Muuse Biixi soo ma ogid buuri in dalkaagi qayb laga qaaday oo laascaanood ka soo baxdeen oo soo ma ogid buu yiri in gobolka Awdal Boorama ay ka bilaabmayso oo soo ma ogid buu yiri inaanu Burca iyo Hargeysa waxaanu doona maanta aanu ka samayn karno qasab sanka ku daloole ee maanta aqbal midnimada oo Janiskaas oo kaliya tad haysataa oo waxa tira Hargeysa waxaan ogolahay in Soomaaliya ka mid noqoto Muuse uu ka kacay hadalka muu jawaabsin uu ka kacay waa really waxa way ma aha waa history waa wax dhacay uu ka kaco bartaas u istaagay idin lama hadli kara buu inta soo hadlasaan markuu halka ka kacay Ismaaciil Cumar Geeli baa arrintii dajiyay dhexdhexaad noqday soo dajiyay arrintii Muuse wuxuu yiri hal arrin doonaya haddaad rabtaan inaan ku wada hadlaan aynu ku wada hadalno warqad aynu qornay oo ah inaynu u wada hadalno sidii laba dawladood oo 1960kii isu biiray laba dawladoodna ahaa oo xuduudooda ahayd yoocada oo la yiraahdo Somaliland British iyo Somaliland Italian ama Somali Italian labada dawladood ee jiray oo inta isku biireen kala noqonaya aynu wada hadalno warqadii waxa Sheekh Saxid Janis bay ku noqotayo Muuse Biixi wuxuu qaatay wax la yiraahdo go'aan nuclear يعني go'aan aad u adago wuxuu ka tagay Ethiopia MOU-gina uu soo saxay warqadii waxay ku noqotay laf dhoon gashay oo mid meel walba taala oo waata Ethiopia u ogolaanaysay inay heshiis gaar ah la gali karto maadaama ay ahayd dal ku wada biiray waana ta Ethiopia markii jiqsiisay Soomaaliya wadunkuna dal kasto ka hadla ay tusi jirtay Muuse uu ka seexan waayay Xasan Sheekh oo dhowr boqol diyaaradood buu raacay u fadhiisan waayay Muuse Biixi intii uu joogay kumuu dhicin qof reer Soomaaliya ah ama wafdi inta leeg inuu laascaanood yimaado wixii doonaba ha dhaco laakiin kumuu dhicin 12kii Abriil
2025 كبay dhacday tii madaxweynihii Soomaaliland jirina joog mu oran kamu hadlin wuu galay maxaa sababay doorashadii xilligii lagu jiray Cabdiraxmaan Ciro iyo waftigiisa iyo dhammaan waxay heshiis la noqdeen in ay doorashada galaan okay Turkiga markuu Xasan Sheekh joogay iyo Ethiopia wuxuu ku yiri waan horta waxba ma diidan in Ethiopia ay doorashadu ha dhacdo Soomaaliland iyaga oo rajada ay ka qabeen in hadduu Muuse Biixi meesha ka noqdo Djibouti-na nasanaso oo MOU-gi meesha ka baxayo Soomaaliyana midnimadii soo noqonayso way naga aragna yaa diidi kara maanta marka aad tiraahdo hadaba qofka wadani taageera ama xukuumadda taageera ama xilka haya waar maxaa kaaga qorshaysan maxaa xukuumaddiina idinka qorshaysan hal qorina korima ridaysan miya waxay ka oranayaan xukuumaddii hore ee Muuse Biixi baa la ascaanood siisay maxaad u bedeshay hadaba muxuu isbedelku yahay haddii ay la ascaanood siisay soo taad ku heshay maaha soo kumaad ololeynin sool bari meeday deemeeday weeyii adigu baltaada baan ku raaco inuu Muuse Biixi garaadada soo daayeen ciidankiisii laga soo adkaaday ummadu soo ma kala adkaaday dhulkan Soomaaliland inuu yahay meel isku diiday hore miyaanu inooga maqnayn xuduudda miyaanu gaadhnay marka hore soo dawlad mid ku jabtiyo mid ku heshiisaba adiga haddaan kaaba dhaafay inaad ciidankii qaranka jabisay inaad ciidankii buurta gelisay inaad booliskii Soomaaliland laysay inaad wax kasta samaysay maxaa maanta kaaga qorshaysan qanshar maad ridin maad cambaarayn laba qodob baad soo saartay midna waxa tiri Mareykanka oo kala hadlay adma Mareykan ba markaa la saarod rag ba iska leh xiniyo ku joogay midna waxa tiri waanu habaaranaay awliya soo ridi doonta awliyadii meeday Xamse Cabdi awliyadii soo dhaafay hadaba uu yimid way hadaba laba mid noo doora ama waxaynu noqon dawlad la yiraahdo Somaliland oo xuduudeeda xafidata oo dhiig baa ku daadan oo waa la wada lahaan oo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland meel baa loogu soo istaagay waa la diiday intii isaaq dego halka hala dhigo oo xadka hala dhigo hal yiraahdo huuna naga hadaba Ilaahay ka baqo waa qodobka kale hadaba maxay dawladani la baqanaysaa dawladani waxay la baqanaysaa sir baa laga hayaa waxaana ka haya xukuumadda Xasan Sheekh iyaga oo muuqaal ka haya lacagana ku siiyay sidii ay Somaliland ama dagaal uga ridi lahaay ama baash way xukuumadda wax Israa'iil ma helaysaan haddaad weydaan dagaal baan galana oo dalka Somaliland la yiraahdo burburinana iyagana waxa lagu yiri waar markuu Muuse Biixi naga helo hubiya ciidan waxaanu idinka baahanana siiya nimankan huwantiinahana taageeraan sidaas hanaguna Hargeysa Burcaya waxaan ka bilaabana baash way fahmeen nimankii korneyladii campaign may gelin waxba may gelin waxa la yiri bal waxay doonayaan intii dalku ku dumi lahaa hal lagu wareejiyo xukuumaddan siday u dhanayd haba yaraatay ajendaheegu muusan ahayn isbedele wuxuu ahaa marka iyaga iyo xukunka ku fadhiistay wax ajenda u diyaarsanaa mu jirin iyaga hadaba sirtii laga hayay umabay daban inay heli doonaan madaxweyne uu dalka Ciro ka noqon doonaan go'aamo yeelan lahaayeen fiidiyoyadii baa laga hayaayo sida hablaha yaryar marka fiidiyoyada inta laga duubo lagu toojar gareeyo oo la yiraahdo lacagaha soo dira oo la yiraahdo sida yeel oo waxay doonto laga sameystay inta muuqaal laga duubo ayaa laga hayaayo haday hadlaan qayl dhaawan waray baa yeeli doonta waryaa sababta oo 25 milyan oo dollar baa lagu siiyay xukuumadda Ciro si ay doorashadii ugu gasho malaayiin dollar bay qaybinayeen ma garat nimankii xukuumadda haystay Muuse Biixi isagoo dalka iyo dadkaba u turaya campaign mu gali lacag kamay bixin toos buu nimankan ugu wareejiyay waayo iyagoon sooba bixin campaign oo wenday la codeeyay maanta oo 4 saacadood ayna cod bixintii ku jireen ay dabaal degeen kama hadlin Muuse kama hadlin cid hal juuq lama oran waxay leeydi socodsiye waa sax way dhamaatay wanaag buu doonayay dalkii hadduu Muuse la rabay inuu dagaalamo maalintii buurta booliska lagu dagaalamo ayuu go'aamadii ka noqon lahayd diidi lahaa dhowda xabad ka saari lahaa Muusaha maanta aad eedaynaysan waa ninka qarannimada uga leex jecel badan nimanka aad arkaysaana waa kuwa aan ka hadlayn waxa ka dhacay sool maxayna markaa sameynaa
dalkan waxaa la rabaa lagu heshiiyey in loo gacan geliyo Soomaaliya maxay yiraahdeen nimankii dhulbahante iyo nimankii heshiiska kula jiray qodobka koobaad ee qabanaysaan ha noqdo inaad jabhadaha hubka ka dhigtaan oo haday halkan jabhad garxajisi gabadha habar jeclay noo soo fadhido dee waxa weey jabhadun ba Israa'iil dagaalkan ugu dheeraanay anaguna waxba samaysan maynee horta kuwan ciidankaaga ku dar ciidankaaga markaad ku dartana sida maanta ciidanka amar loo siiyay inaanay talaabo qaadin ayaa loo sii doonaa bari toolaha hadaba maxaa la qorsheeyay waxa la qorsheeyay in saldhigii ugu weynaa laga sameeyo Goojacade hub iyo ciidan iyo wax kaste la keeno Somaliland talaabo way qaadi weeyday way ka faa'iideysan weeyday waxba way ka qaban weeyday halkaas lagu ururinayaa nisa la keenay ciidamada la keenay 6 diyaaradood hubaa la keenay warsangaridiiba hub la siiyay dhammaan waxa la yiri dagaalka gala dagaalkii marka la galana waxa weeyi waxa la yiri berbere iyo burca lagu wada hadlo waa Soomaaliya ajandaheega dhanka nimankan khaatimana waxa lagu yiri idinkii warsangari heshiiya maamul fiican qaata waxana la idin dhisay dekadii laas qoray waxa kale oo la idin dhisayaa airport waaweyn nidaam wada lahaada maamul adwad leedihiin oo min ceeri gaabo ilaa buuhoodle ilaa halkaasa oo maamul saddexaad oo daarooda oo bartaasi ka dhasha nimankan isaaqaday jufuq yiraahdana xabad ba afka lagaga garaacayaa oo hub iyo ciidan iyo awood aad u badan badaysataan ciidanka Soomaaliland ciidanka tababar fiican waa in la keeno hubka Soomaaliland haysato hub ka fiican waa la keeno waayo waa niman Shiinaha xiriir la yeesheen hub bay ka soo qaateen Qatar Azerbaijan Turki cid wal oo Soomaaliya hub siinaysa waxa laga soo qaadanay khawaarij baan la dagaalamana Soomaaliland waa lagu dagaalamaya runtu waa intaa reer Somaliland waa kuwa madaxweynahoogii uu toojar gareysan yahay reer Soomaaliya inuu kelmad oran karin beesha caalamka aanu ka ashkateenina beesha caalamka hadaba ka saarto barnaamijka sheer gareeya meel fog gaarsiiya aad iyo aad baan ku salaamayaa